xaaji aadan afqalooc qurba joogta kuwoodii ugu qiimaha badnaa. abwaan xaaji aadan afqalooc waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa haldoor indheergarad lehna hal abuur khiiro miiran oo guubaabo weyn u ahayd bulshada Soomaaliyeed xilligii gobonnimadoonka iyo xilliyadii dawladihii ka dambeeyay ee rayidka ahaa iyo tii kacaankaba. xaaji aadan wuxuu qurbaha ku maqnaa laga bilaabo 1902 ilaa 1941 wuxuu dalka hooye ka tegay asagoo aqoon fiican u leh maansatirinta. taana waxay u suuro gelisay markuu dalka yimid inuu curiyo maansooyin cumqi iyo mug weyn oo caqliga bulshada kobciya. axmed faarax idaaja oo falanqaynaya maansooyinkiisa ayaa wuxuu yiri maansadii ugu caansanaa ee uu tiriyay ayaa wuxuu ahaa tabaalaha waqtiga. maansadu waa fariin abwaanka uu u diray cabduqaadir soobe oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda cabdirasaaq xuseen oo xilligaa jirtay. waxay ahayd maanso khayladhaan ah. tuducyo ka mid ah maansada aadka u dheereed ayaa waxay odhanaysaa: dhibta timid jamhuuriyadda oo tahan la boobaayo, iskaa wax u tabciyo, khaayinimo leysku taageerye, khawaaniin u taal iyo nidaam taxan ma yeelaane, sida reer tafare amar ma jiro leysku taabacoe, warqad jananku teeb kuugu qoray kaabuul kugu tuuriye, waashmaan kollay tahay ninkii taabay meel dheragye, taaj madaxa oor loo geshaa waa tusmeha boowe, tuug daalin iyo caasi baa tamar u yeeshaane, tambi baad u dhiibteen nimaan tunno ka sheegayne, toorey af badan bay u xidheen taarig xoogsadaye. iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye, tug kaloo ka daran baa jirtee taana bal aan sheego. gunaanadka muuqaalkani ayaa wuxuu yahay xaaji aadan afqalooc wuxuu qudwad qiimo leh u ahaa qarankeenna. qurba joogta maanta jirana waa inay khibrad ka helaan qurba joogta hore ee sida xaaji aadan